qodobo ka dhigaya qof reer magaal ah oo la ixtiraamo. 1 isku day inaadan dadka waxba uga baahan. 2 dadku siraha ay ku dhiibtaan iska ilow. 3 dadku marka ay ku baahdaan caawi hadii aad karto. 4 dadka xantooda ha raadin. 5 marka qof agtaada fadhiya telefoonku hadlaayo ama cid idin ag joogta uu la hadlaayo ha weydiinin wixii uu kala hadlayay ama cidda uu la hadlayay. 6 dadka doonistooda ixtiraam. 7 dadka ha ku qasbin doodahaaga. 8 murugooyinkaaga qarso. 9 qof kula jooga meesha uu ka nugul yahay ha ka hadlin. 10 haddii arrin uu qof sameeyay uu kuu sheego qof kale oo isagu uu u sheegay ha weydiinin arrintaasi qofka sameeyay, waayo waa qalad iyo kalsooni xumo in aad heerka saaxiibtinimo oo idin dhaxeeya aad uga qiyaas qaadatid xog cid kale sabab un loogu sheegay. 11 hadallada iyo aragtiyada dadka ha ka dhigin wax lagu qoslo. 12 qof han iyo doonis leh ha niyad jabin. 13 aamuskaagu ha ka badnaado hadalkaaga. 14 dadka ha xaman. 15 ha qarsan aragtiyadaada si aad cid kale u raali gelisid. 16 dadka ha xasuusin abaal hore oo aad u gashay. 17 cuqdada iska ilaali. 18 cid walba ixtiraam. 19 saaxiibadaada yaree. 20 danahaaga shakhsiga ah ku dadaal. 21 qof naxariis lagu yaqaan noqo. 22 marka aad la kulantid qof aydan muddo is arag ha weydiinin waxa muuqaalkiisa iska bedelay sida cayilka, caatada, timaha, midabka iyo wixii la mid ah. 23 ballamahaaga ilaali. 24 xanaaqaaga qarso. 25 ka agdhowow saaxiibo muxtarimiin ah. 26 qaladkaaga qiro. 27 cadaaladda ha uga tallaabin cid aad jeceshahay ama aad necab tahay darteed. 28 qofka kula hadlaya ha ka dhaxgelin hadalka. 29 ula dhaqan dadka sida aad jeceshahay in lagula dhaqmo. 30 noqo qof daacad ah oo lagu kalsoonaan karo. ugu dambayn dadka u mahad celi. like muuqaalka sidoo kale share dheh ama 3 jeer koob linkiga taabo. mahadsanid.